Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taranka kala socoto abqara ajagta official. Waxaana sii socdo sida su'aal lagu weydiiyo Swahili. Lambarka shanaad ay arkayna maanta oo Phoebe how. Marka Phoebe-daas waxa isticmaali doonaa markii rabno inaan ka dhigno su'aal J. J-daas marka laba shay ayaa u isticmaali doonaa, marna ficilka oo ku dari doonaa, marna banaanka ayaan ka dhigi doonaa. Sida arkaysaan lama 7 8 9 10. Marka isla socod wanaagsan. Lambarka koowaad waxaa leedahay tuta kulaje. Waa u jeedaa ficilka oo ku darnay jeeda ayaan kula oo ficilka ayaan waxaan dhahnay tuta kulaje. Sidee ku cuni doonaa? How will we eat? Tuta jesa J. How will we play? How will we play? Sidee ku ciyaari doonaa? Tuta andika J bila kalamu. Sidee ku qori doonaa qalin la'aan? How will we write without pens? Tuta imba J bila kibusi sauti. Sidee ku heesi doonaa microphone la'aan? How will we sing with our microphone? Wanafunzi arbiya J mitahani. Sidee ardaydu imtixaanku baasi doonaa? How the student pass the exam? Utakula mukati. You will eat bread. Waxaa cuni doontaa rooti. Utakula mapempa. J aka hor min mujida. J utakula utalala mapempa. You will sleep early. Waxaa seexan doontaa waqti hore. Sidee marka waxaa leedahay marka sidee ku seexan doontaa waqti hore? Waxaa leedahay marka J utalala mapempa. J utasoma Kiswahili. Waxaad baran doontaa Swahili. You will learn Swahili. Marka waxaa ka hormarnay J sidee ku baran doontaa Swahili. J utalia kesho. You will cry tomorrow. Waxaa ooyi doontaa beri. Sidee ku ooyi doontaa beri? J utalia kesho. J tutaenda Kenya. Sidee ku aadi doontaa Kenya? You will go to Kenya. Sidee ku aadi doontaa Kenya?